بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سو dhawaada أحبابي walaalkiin Axmed Jowhar, baarak allahu fiikum. aad baad ugu mahadsantihiin waqtigiina qiimaha badan leh. waxaan rabaa in aad nagala socotiin haddeeto qanaadkeena youtube-ka biidni illaahi alkariim, wixii aan u aragnay in ay faa'iido inoo tahay nolosheena, in aan idinla wadaagno oon idiin soo gudbino. waxaan rabnaa caawa marka in aan idinla wadaagno caalamka aan ku nool lahay. qofba meel buu kaga noolyahay caalamka, kan Maraykan jooga, North America, South Asia, Asiada dhow, Middle East, Europe, Africa, Australia. qofba meel kasta uu qofku uu joogo waxay u muuqataa in uu caalamka la socdo oo caalamka waxa ka dhacayay ay saameynayso noloshiisa, haddii ay tahay caafimaad, haddii ay tahay dhaqaale, haddii ay tahay shaqo, haddii ay tahay shuruucda caalamka maanta hogaamisa ama dadka hogaamiya caalamka, waxyaabaha soo baxaya ee ay soo saarayaan noloshaada siday u saameynaysa. marka waxaan rabnaa arrimahaas in aan hadduu ala yidhahdo isla falaqayno. waxaan ku bilaabaynaa biidni illaahi alkariim. waxaad ka warqabtiin ood idaacadaha aad dhegaysanayseen, haddii aljazeera tahay, CNN, BBC, iyo any outlet news oo aad dhegaysateen, akhrideen, social media hadday Twitter tahay, Facebook ay tahay, waxaa caalamka sidaa ugu soo baahay in laga warramayo oo la hadal hayo in ay bilaamatay wax la yidhaahdo cyber war. caalamku inuu ku dagaalamo maanta waxa la yidhaahdo samada in satellite-ka loo diray lagu dagaalamo, yani in cirka laga dagaalamo, iyadoo cirka laga dagaalamayo laysku adeegsanayo aalaadkaas cirka loo diray in la isku dilo iyada oo dhulka la kor joogo. waa cajiib, adagoo caalamka qarkiisa kala jooga inuu ninaad cadow isku tihiin uu kuu soo diro, maxaan ku idhahdaye satellite isagoo adeegsanaya uu kuu soo diro maxaan ku idhahdaye amar ah in meesha aad joogto equipmentka aad haysato ama qalabka aad haysato lagugu dilo. xaqiiqatan waa midda maanta shalay ka dhacday, maxaan ku idhahdaye dalka Lebanon ama Libnaan aan u naqaano haddaan muslimiin nahay, oo marka ay awood u yeelatay in dowladda Israa'iil ay hesho, sida hadda ay tilmaamayaan, ay sheegayaan inay heshay fursad ay ku hesho access, yacna madkhal awood ay ku dhex gasho maxaan ku dhahday aaladahan telecommunicationka lagu wada xidhiidho. maalan xisbullah ayaa waxay adeegsanaysay aalado ka duwan telefoonada caadiga ah oo markaa la yidhaahdo pages, ama sida walkie talkie oo kale, geedkan gacanta lagu qabtay anteenada dheer leh. deetana maxaa dhacday in mid kastaba meesha uu joogay amar inta loo diray halka laga qarxi. arrintaas waxay sababtay marka in ay keento 20 qof ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen oo lagu dilay, ilaa 2750 qofna ay ku dhaawacmeen, hadday suuq joogaan, hadday meel shaqo joogaan, haddii ay meel kala joogaan, meelaha ay joogaan ay ku siteen in lagu qarxiyo. waxay markaa arrintaasi keentay walaac aad u weyn oo cajiib ah. caalamka markaad eegto, markaad akhrido joornaalada sida Financial Times oo kale ama New York Times oo kale ama Guardianka oo kale, waxa ay qorayaan waxyaabaha cajiibka ah. sidee Israa'iil awood ugu yeelatay, su-aal la isweydiinaya runtii, sidee awood ugu yeelatay in ay iyada oo maaragtay Libnaan dadka jooga ay target garayn karto oo geedahan ay wadatana ay qarxin karto, isla markaana dhinaca kale waxay isweydiinayaan sidee u qaban kari weyday, ay u celin weyday. waa qodobka labaadeen sheegi doonee, xuutiyiinta in ay Yaman ka soo diraan, maxaan ku idhahdaye yacna gantaal intay ka soo diraan ay soo gaadho Tel Aviv, kabacdina Tel Aviv dhexdeeda intay ku dhacdo ay geysato khasaare aad u weyn, inteeda badanna ay qarinayso dowladda Israa'iil. marka wax cajiiba waxyaabaha ay tilmaamayaan waxaa ka mid ah in ay heshay qolyahan muusaadku ay heleen maxaan ku idhahdaye accesskii, koodkii ay ku qarxin lahaayeen. sidee u qarxiyeen waa la isweydiinayaa.
dadka ku takhasusay maxaan ku dhahday chemistryga iyo maxaan ku dhahday anything or mechanical device sidee loo qarxin karaa. Okay, geedkan waxaa ku jira geed kasta oo shaqaynaya wuxuu u baahan yahay in uu helo energy power, inuu helo powerkaasi, in uu ka helo connection uu leeyahay korontada meel ama wax korontadii replacement u noqonayo oo battery in la helayo. marka battery baa ku jira geedahan. bayterigii geedahan ku jiray ayaa waxaa la leeyahay waa laba mid. kow, in overheating, in uu kulayl ziyaada ah intay ku samaysay, maadaama oo detection intay connection ay samaysay, xidhiidh ay la samaysay, isla markaana kululaysay baateriyadii, sidaana ay ku qarxeen. optionka labaad ay sheegayaan waxay leeyihiin waxaa dhici karta in maya markii lasoo deliver garaynayay in markeeda horeba laga sii baarandegay oo qorshe la sii degay ah in lagu sameeyo device qarxiya, overheating ku sameeya, qarxiya markaa maxaan ku dhahday bayteriyada. okay, bayteriga noociisa lithiumka la yidhaahdo, lithium ion, oo maanta shirkado waaweyn oo caalamka ka shirkado khatar ah ay adeegsadaan, ay isticmaalaan, inay awood u heleen inay sameeyeen, inay maxaan ku dhahday isticmaalaan in ay qarxiyaan. marka waxaa markiiba ka soo hadashay oo ka soo jawaabtay shirkadda markeeda hore samaysay geedahan ay adeegsanayeen reer Lebanon oo la yidhaahdo Apollo Gold ama Gold Apollo oo dalka Taiwan laga leeyahay. way ka hadashay, waxay tiri annagu maadaama oo aan assembly samaynay, isku gegeynteeda aan leenahay, waxaan siinay dowlado qaarkood license in ay adeegsan karaan, isticmaali karaan, laakiin annaga devicekan aan samaynay ma ahayn device dilaa oo bili aadanka dila. way iska baryeeleen. waxay u gudbiyeen oo ay kubadda u tuureen reer Budapest, Hungary. dalkaas shirkad ka jirta, company ka jira oo ka qaata Taiwan, ayaa la tilmaamayaa in iyaga laga sugaya hadda in ay ka jawaabaan oo iyaguna ay iska baryeelaan. waayo markii loo soo delivereynayay maaragtay Lebanon, dhinacaasay ka soo aaday ayay leeyihiin wariyayaasha qoraya. waa cajiib. marka cabsi weyn marka waxay arrintaasi ku leedahay ama ay ku keensatay inay aad uga walwalaan, oy aad uga fikiraan caalamka maanta nimanka waaweyn ee wax sameeyay wax soo saar kale sida Mareykanka, Yurub, maxaan ku raadayay Australia, inay isweydiiyaan wax soo saarkoodii macluumaadkan soo baxay ee cajiibka ah ee dowladda Israa'iil ay ku kacday. ma dhici kartaa in ay caalamka ay geliso baqasho, ay ku keento hoos u dhac productionkii lagu sameynayay cid alla cid kaste ama product kaste oo loo adeegsado batterigan la yidhaahdo lithium. waxa ugu horeeya oo dharbaaxo weyn ay ka soo gaari kartaa arrintaasi, dibna ay u keeni kartaa in looga laamo oo cabsida weyn ay keento, waxaa weeye Tesla, Elon Musk, in halkii uu cararayay in uu gaaro sanadka 30 markii la odorosayay. qolyahan economiga ka sheekeeya sida jaraa'idka Forbes la yidhaahdo ay tilmaamayeen ninka ugu horeeyay ee trillion yeelan doona in uu noqdo. cabsi weyn bay arrintaani gelisay ee ay ku keentay oo ay dhici karto in ay ka baqaan Tesla baabuurtoodii ma la gadan doonaa, iyo any other device, yacna aalad kasta oo loo adeegsan karo baateriyadan, ama mobile ha noqdaan ama maxaan ku dhahday wax kastoo electronic oo u baahan doona. marka arrintaasi waxay leedahay cabsi. qodobka labaad oo aan runtii aan isleeyahay dhinac waxay u baahan tahay laftigeeda caalamka in la isweydiiyo sidee la iskula dhaqmi doonaa cilaaqaadkii iyo xiriirkii iyo awoodihii xoogga la isku sheeganayay ee droneka la isticmaalayay gantaalada xawaaraha dheer ku socda ee masaafada dheer ama distanceka dheer
gaaraya la isku leynayay in awal dadka muslimiinta aynan haysanin bal loogu cagajuglayn jiray maraykanku nato saasoo kale la isku gumaysanayay Russia in ay maanta Yemen xoutiyiintu inay heleen oo ay haystaan oo ay samaysteen maxaan ku idhahdayay gantaal intuu ka duulo uu ka kaco maxaan ku idhahdayay Yemen uu ka kaco magaalooyinkeeda kala duwan uu aadi karo Sacuudiga uu aadi karo maxaan ku idhahdayay Ciraaq uu aadi karo Syria uu aadi karo sida uu Tel Aviv ba hadda u gaaray uu gaari karo Istanbul bal uu gaari karo maxaan ku idhahdayay Tehran caalamka meesha doonta sheeg Soomaaliya soo aadi karo maxaan ku idhahdayay Paris uu aadi karo marka intee eg ayay arrintani fikir badan iyo cabsi badan iyo walwal badan ay gelin kartaa reer galbeed bal intee eg bay laftigeedu saaxiiba yeelan karaan ama heli karaan haddii aan idhaahdo dalalka muslimiinta gumaysiga lagu haystay Russia iyo China oo dhinaca iyo reer galbeedka NATO iyo Maraykan oo dhinaca iyaa kala qaadan kara iyaa kala loo soo kala yacna baratibi kara arrinta xoutiyiintu ay sameeyeen waa arrin runtii aan isleeyahay waxay keensan kartaa in yahuud iyo ciddii maaragtay ay xulafada la ahayd Maraykan iyo Yurub inay isweydiinayaan marka dadka muslimiinta runtii waxaan isleeyahay ma dhici kartaa arrintani in ay keensan karto in baraarug badan ay ku kiciso oo baraarug cankee inay is yiraahdaan xoutiyiintu way heleen Sacuudiyiintuna way heli karaan Ciraaqiyiintu way heli karaan dalalka muslimiinta ee gumaysiga ku jira way heli karaan xorriyad bay ku samaysan karaan dhinacaas mala dhihi kara dhinaca kale ma soo jiidi kartaa in dagaal aan caadi ahayn xoogan intuu dhaco xoutiyiinta iyo caalamka muslimiinta aba ciriiri weyn oo kii ka sii daran in la saaro aragtidiina maxay idin tahay aad mahadsantihiin jazakumullahu khairan subscribe kana وحقينا بارك الله فيكم وولكن أحمد جوهر انت ندير سكاركي دون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله